ka warrama saaxiibayaal haddii aan idin idhaahdo applicationka waafi ee aynu ku isticmaalno telefoonadeennu wuxuu doonayaa inuu noqdo applicationka keliya ee aynu ka helo waxyaabaha aynu telefoonka uga baahannahay badankooda oo dhan. marka aan ku leeyahay wuxuu doonayaa inuu noqdo waxyaabaha aynu telefoonka uga baahannahay oo dhan, wuxuu doonayaa inuu inoo bedelo applicationka WhatsApp, adeegyada sida sad, evc plus iyo golis. waxaa kaloo waafi doonayaa inuu noqdo applicationka aynu ka iibsano alaabaha marka aynu internetka ka dalbanayno. waxaa kaloo doonaya inuu inoo bedelo social mediaha oo uu noqdo meesha aynu muuqaalada iyo baraha bulshada waxyaabaha lasoo dhigay ka aragno. marka aan kuu sheegay waxyaabahan oo dhan si aad si fudud iila fahanto, waxaad u baahantahay inaad isweydiiso maxaa applicationka waafi loo sameeyey, se maxay tahay sirta kala dhaxaysa applicationka waafi wadanka Shiinaha. marka hore waxaanu sir weydiinaynaa balse ay u fududaato waxyaabahana sheegay inaad fahamto ama aad aaminto. waxaan sir weydiinaa maxaa waafi loo sameeyey, se maxaynu hadda u isticmaalnaa. waafi waqtiga aan muuqaalkan duubayo waxaynu u isticmaalnaa, waanu imanayaa maxaa loo sameeyey, waxaynu u isticmaalnaa inaynu lacagaha ka dirno ama lacag inaga laynoo soo diro inagoo waafi isticmaalayna. waafi markaa lacagta waxaa laga dirayaa adeegyada saada, evc pluska iyo goliska, maadaama lagu xirayo haddii aad number hormuud leedahay lambarkaad ku isticmaalayso, lacagta evc-ga kugu jirta ama evc pluska kugu jirta aad ka dirayso ama lagugu soo dirayo. haddaad telesom ama sad isticmaalaysana saadii baad lacagta ka dira ama waa lagugu soo diraya. sidoo kale waqtigan aan muuqaalka duubayo waafi waxaan u isticmaalnaa haddii aad leedahay Dar-es-Salaam Bank oo aad Somaliland joogto oo aan anigu joogo, ama aad isticmaasho Salaama Bank oo ka shaqeeya Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya, bangigaaga lacagta kugu jirta ama micnaha dhaqdhaqaaq waad ka samayn kartaa, lacag waad ka diri kartaa, lacag waa lagu dhigi karaa, waad ka akoon kalaad dhigi kartaa, waxyaabahaasaad ka samaynaysaa. so haddaba intaa marka horeba simikaarka aynu isticmaalno ee hormuud ina siiso ama telesom ina siiso waynu ka samayn jirna. so maxay su-aasha waxay noqonaysaa maxaa waafi loo sameeyey. si aad ila fahanto sababta waafi loo sameeyey, waxaan doonaya inaynu yar aadno wadanka Shiinaha. balse intaana wadanka Shiinaha aadin, waxaan rabaa inaan ku caddeeyo muuqaalka markaan duubayo xogaha aan kula wadaagayo ma aha xogo aan ka soo daliishanayo ama ka soo qaatay waafi iyo telesom iyo evc plus iyo hormuud. waa xogaan aanu kula wadaagayo. sababtaan kula wadaagayna waxa weeye waa waxa jira, because internetka waad fahmaysaa marketinga iyo kambanigu xagga u socdo. so waxaan kuu sheegayaa inaanan waxaan ka soo xiganaynin cid kale markaa oo waxyaaba aniga aan kula wadaagayo. way Shiinaha inuu yar aadna markaa, wadanka Shiinaha waxaa jira application la yiraahdo WeChat oo ka shaqeeya. applicationka waxaa lagu naanaysaa super app. super app macnaheedu waxa weeye waa application aad u awood weyn oo dhaafay awoodii uu application telefoon lagu shubaa lahaan lahaa. sababta applicationka loogu bixiyey super app wax kale maaha, waa appka keliya ee telefonkaaga Android ama iPhone inaad ku shubato aad u baahan tahay. waa appka aad ka helayso 90% waxyaabaha si guud telefoon looga baahdaba. kow, applicationka WeChat wuxuu leeyahay qayb waxa weeye waa sida evc plus iyo sad oo kale. lacagta ku taala qof baad uga diri, waa lagu soo diray, micnaha lacagtaada maaliyadeed baa lagugu soo diray, waad ku diri, waxbaad suuqa ka iibsan, saasaa loo isticmaalaa. intaasoo kaliya maaha, waxaa applicationka WeChat loo isticmaalaa sida WhatsApp oo kale. waxa weeye dadka asxaabtaada ah ee nambaradaada haya, adigana nambarkooda aad hayso, fariin baad uga diri, way kuu soo diri, sida WhatsApp oo kale weeye. status baad sida WhatsAppka soo dhigi, way arkayaan waxa aad soo dhigtay. fariintaada marka aad qof u dirto iyo marka lagu soo diro waad qarin kartaa cidda arkaysa fariinta inaad akhriday inaanad akhriyin, waad block garayn kartaa dadka. so WhatsAppna waa oo kale, micnaha lacag waad ka dir, waa lagugu soo diray, sidii waad u isticmaalay, sida WhatsAppka oo kalena weeye. intaasoo kaliya maaha, sida Amazon oo kale ama Alibaba oo kale ayaad wax ka iibsanaysaa. waxyaabaha internetka lagu iibiyo dhan wadanka Shiinaha dhexdiisa halkaasaad ka arkaysa, isagaad ka dhex dalbanaysaa Amazon ahaan, dana waa lagu soo diraya. so waxyaabaha aad uga baahnayd 7 application oo kala duwan waxyaabaha aad uga baahnayd bad hal application ka helaysaa. so waxyaabihii loo baahnaa ee telefonka looga baahnaa 90% applicationkaas kaliya ku jiraan. wuxuu leeyahay wax la yiraahdo mini apps oo ah applicationo yaryar oo lagu sii dhex shubayo isaga adigoo aan internetka iyo Play Store aadin, baad isaga dhexdiisa ka helaysaa waxaaba. dadna marka applicationaas waxay gaarayaan waqtigan muuqaalkan duubayo oo aan hubiyey ilaa 4 milyan. haddii aan source-kan xiganayo aanay outdated ahayn oo aanay xog hore ahayn, waa 4 milyan oo application baa ku sii dhex jira isla applicationka.
so waad qiyaasi karaysaa inuu dee micnaha application 4 milyan oo application ku dhex jiraan. So applicationkaas waxa laga yiraahdaa waddanka Shiina waa super app, waa application aad u baahan tahay oo ay khasab tahay inaad haysato si aad si maalinlaha ugu noolaato waddanka Shiina. Sababtoo WhatsApp ahaan baa loo isticmaalayaa, social media ahaan baa loo isticmaalayaa, waxaa loo isticmaalayaa lacag in lagugu soo diro saadi, waxaa loo isticmaalayaa in internetka waxyaabaha aad rabto inaad ka dalbato. Dowladda laftarkeeda isticmaasha oo apps kule oo dowladda xoog ku soo gudbiso oo markay cashuuraha qaadayso. So wax weeye waa applicationka noocaas. Haddaba maadaama ila fahantay WeChat oo ah applicationka waddanka Shiinaha ka jira waxaan doonaa markaa inaynu ku soo laabano applicationka Wafi. Applicationka Wafi cidda saxda ee leh ma garanayaan. Waxaan si ku ogahay waqtigan muuqaalkan duubayo saddexda shirkadood ee Hormuud iyo Golis iyo Telesom in ay saddexduba partnership la leeyihiin oo xiriir la leeyihiin. So either ama saddexdooda wada leh ama mid ka mid ah leh, waa say u badanta waa sidaa. Haddaba applicationkaas waxaa loogu talagalay Wafi in loo isticmaalo sida applicationka WeChat. Waqtigan muuqaalkan duubayo haddii aanad ogeyn, waxaan filayaa asxaab fara badan inay mala og yihiin, Wafi wuxuu leeyahay sida WhatsApp oo kale inaad qofka fariin u diri karto isna kuu soo diri karo iyadoo internet kala isticmaalayo. Wax lacaga oo SIM cardka kugu jirtana kaa bixmayso. Waqtigan muuqaalkan duubayo waad tijaabin karaysaa. Wax weeye qaybtaas ayuu leeyahay. Wafi sidoo kale wuxuu leeyahay profile baad saaranaysaa. So fariimo markaad qofka wadaagaysan qofku uu arkaya cidda fariinta u soo dirtay oo profile-kaaga uu leeyahay. sidoo kale Wafi wuxuu leeyahay dabcan waan ognahay lacag waad ka diri kartaa EFC iyo Saadi taa waan naqaanaa. Sidoo kale bangiga waad ku isticmaali kartaa Dar es Salaam Bank, Salama Bank, bankiyada inta naqaano. Sidoo kale Wafi wuxuu leeyahay waxaad ka dalban kartaa internetka aad Wafi isticmaaleed ganacsiyada kugu dhow ka dalban kartaa wax deegaanka Soomaalida. Waqtigan muuqaalkan duubaya anigu waan Wafi daqiiqadeer ku hortisi eegay intaanan muuqaalka duubistiisa bilaabin. Magaaladan anigu joogo waxaan Wafi ka helay cafeteriooyin magaalada aan tag joogo anigu ku yaala oo aan aad iiga fogeyn ban applicationka Wafi ku dhex arkay. So cafeteriada aad ku aragtay macnaheedu waxay cafeteriada waxbaad ka dalban kartaa dadna waxa weeye way ku soo diraysaa. So ma huba 90% inuu cafeteriooyinku shaqaynayaan oo haddaan hadda cafeteriada fariin u diro isla markaba ay helayso because man tijaabinta. Laakiin as long as aan cafeteriada ku dhex arkay Wafi waxaan ka soo qaaday inay shaqaynayso because in cafeteriada la dhex keeno Wafi waxay la mid tahay inay somehow cafeteriada markaa Wafiga laga heli karayo oo inta laga la xiriiro lacagta loo diri karayo kadibna markaa lagu soo diri karayo wixii lagu keeni karayo. So haddaba waxa weeye Wafi waxa la rabaa in uu noqdo adeegaas la yiraahdo WeChat. Balse waxa xusuus mudan Wafi ma aha applicationka kaliya ee sida WeChat oo kale inuu noqdo raba. Waxa jira application kale waxa la yiraahdaa Dahab Plus. Dahab Plus waxa iska leh Dahabshiil ama Somtel. Waa isla Wafi oo kale. bangiga Dahabshiil baad ka heli kartaa, Dahab baad ka heli kartaa, SIM cardka Somtel baad ka heli kartaa, Dahab Plusna. So waa isku mid Wafi iyo Dahabshiil. Sababtan Wafi muuqaalkan soo qaatay waxay sababtoo ah Wafi ba kan macna dadka isticmaalayaasha ay ku badiyeen waqtigan. Sababtoo ah saddex shirkadood ee Hormuud iyo Telesom iyo Golis oo saddex shirkadood oo dad fara badan deegaanada kala duwan u isticmaalaan ba shirkadan ayaa Wafiga wada xiriir la leh. Laakiin Dahab Pluska Somtel oo kaliya xiriir la leh. So meelaha qaar waxa laga yaabaa in lagaga awood bato deegaanada qaar oo dad fara badan aanay Somtel iyo Dahabshiil adeegyadiisa isticmaaleen. Haddaba labadan shirkadoodba si wada jir ama labadan app Wafi iyo Dahab Plus si wada jir waxay doonayaan inay mid u gaadhaan. So su'aashu waxa weeye ma noqon karaan. Waxaan doonayaa horta inaan aragtidaada marka xogtan kula wadaagayo aad commentiga kula wadaagto. Waxaan isku dayi doonaa inaan commentiyada wada fiiriyo inta aan ka awoodo aan ka jawaabo aan arko bal fariimeynaysa waxay leeyihiin. Laakiin aniga aragtidayda Wafi waa applicationka ugu macquulsan ee gaari kara hadafka. Sababtoo ah already shirkadda Hormuud, shirkadda Telesom iyo Golis deegaanada ka shaqeeyaan waa saddex shirkadood ee telecommunicationka hogaaminaya. Waan ogahay Somtel waliba si gaar ah anigu Somaliland baan joogaa waa isku dhow yihiin Somtel iyo Telesom. Ha yeeshee deegaanada kale ma hubo anigu. Waxaan filayaa in Somtel laga awood weyn yahay laakiin ma hubo deegaanada kale ee sida Puntland iyo waxa weeye koonfurta kale Soomaaliya ee ay Hormuudu aadka uga shaqeyso. So taas waa tasiinaysa Wafi fursad aad u badan oo ah inuu noqdo applicationka ugu badan maadaama yahay kan dadka inta ugu badan isticmaalaan ee lacagtu u taalo. Qof kasta oo EFC Plus ama Golis lacag u taalo waa qof kasta oo Wafi isticmaali kara. Halka
dee daha balaaskaad u baahan tahay somtal inaad isticmaasho saa daha balaaska u isticmaasho sidoo kale daha balaas wuu leeyahay waxyaabaha aan sheegay oo waafigu leeyahay xitaa waxyaaba ka fara badan buu daha balaas leeyahay waqtigan muuqaalkan duubayo adeegyada ka bannaan daha balaas ee aad daha balaas dhexdiisa ka dalban kartaa ka badan kuwa aad waafi ka dalban karto marka waxa weeye waa labada applicationba waa isku dhoweyn xagga tartanka so labadan ma noqon karaan aniga aragtidayda waxay ila tahay ha marka la eego muxuu ahaa waddankeenu xaaladahan sida uu yahay shirkadahan oo dee shirkado aada u hanti badan ah wax fara badan socodsiin kara khasbi kara even dowladda laftarkeedu wax fara badan u fududayn karto maadaama ay qayb fara badan dowladda ka qaataan waxay ila tahay aniga mustaqbalka dhow waxaynu arki doonaa applicationadan oo inoo bedela waxaana xitaa muujin muuqaalka dhexdiisa wifi waxa uu leeyahay qayb ay bulsho ugu yeedheen oo ah qayb muuqaala la geliyo oo aad noqonayso si youtuber oo kale oo aad muuqaala geliso maan tijaabin anigu personally laakiin qaybtaana uu leeyahay markaa waxa weeye dee social mediahii buu maarata halkaana kasoo talaya markaa marka waxa weeye labadaas applicationba waxa weeye waa laba application oo doonaya inay noqdaan aniga aragtideeda waa macquul waa possible inay noqdaan marka la eego micnaha fursadda ay suuqa u haystaan iyo company kale oo codhoodhi kale oo kusoo dhawaan kara waan jirin atleast labadooda oo tartama mooyaane haddaba waxaan rajeynayaa bal inaad fahantay waxyaabahan kuusoo gudbiyey waxaana soo dhaweynayaa aragtidaadii siday kula tahay iyo in ay noqon karaan ay suuqa qabsan karaan oo sida wechat oo kale ay waafi iyo noqon karaan dahablas mustaqbalka iyo ka noqonaya aniga aragtiyada waafi baa ugu badan inuu noqon karo wixii kule faalo ah iyo wixii aragtidiina commentigan ku rajeynaya muuqaalka intaan kusoo afmaraya waxaan rajeynaya wax ka faa'iiday haddii ay dhacday muuqaalka like noo saar haddii aan wax ka faa'iidan muuqaalkan oo aanan rajeynayn muuqaalkan waa dislike garan kartaa muuqaalka kan xiga inta aan ku kulmi doono aniga idinku baxay rajeynaya khayr wassalaamu calaykum